gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata gaadiid fara badan oo aan qaran ma ahane munaasabana leh waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinayna ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan annagoo ah mas'uuliyiintii iyo wasiiradii degmada Xaraale iyo sanataradii iyo xildhibaanadoodii ku soo dhawaada ra'iisul wasaare iyo wafdigaaga insha Allah ta'ala ciidankan iyo hubkan inay qaran noqdaan xuquuqdii degmadani ay lahaydna la helo difaaca iyo amniga iyo sakuuradka degmadana ay leedahay xilkeedana uu la wareego qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha wakiilkiisa ah annaga intii aan ku meel simi karnay waa ku meel sinay insha Allah ta'ala wixii wanaag ah oo lahayna waa wareejinay xifdiga iyo amaanka iyo mas'uuliyadda iyo kaawayaashii dawladnimadana qarankan ka sugaynaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay galabtay mas'uuliyiinta intaan leego uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha qaranka inay noo yimaadaan waxaan ku wareejinaynaa sida wasiirkuba uu sheegay gaadiidkaas noocyada kala duwan leh oo qayb ka mid ah maanta qabaa'il Soomaaliyeed oo haysta uusan jirin oo ay ka mid yihiin beebayaashu ama gaadiidka gaashaaman waxaan ku wareejinaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan ku wareejinaynaa wasiirada dawladda waxaan ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dawladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto wabillahi tawfiiq annagoo hubkaas haysanaa dhibaato badan noo timid hubkaan marka waxaan isaga difaacaynay cid kasta oo cadow ah oo na soo hajoonta waxaan dawladda ugu wareejinaynaa dawladdu inay amnigayaga ay ballan qaado baan ugu wareejinaynaa ilaahay baa ballan qaad kale waxa weeye raggayagii iyo hubkayagii labadiiba dawladdan galabta ku wareejinay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiirada la socdaan ku wareejinay waxaan ugu wareejinay dawladda ilaahay baan amni ka rabnaa laakiin dawladdan markaan ka bacdeed amni ka rabnaa raggii iyo hubkiina waan ku wareejinay